Assalaamu calaykum daawadayaal waa Farseef oo mar kale soo laabtay. Saad og tihiin wixii shacabka dhibaayo annagan inayna dhibayaano. Maanta waxaan idinkugu soo talagalnay xalka arrinta dhib badan ku haysa in badan oo bulshadeena ka mid ah. Arrintaas waa hurdo la'aanta ama hurdo yarida. Kama hadlayno qof iskiisa u dhafro ee waxaan ka hadlaynaa qof hurdadii waayay. Halka aad nagala socotana waa wax kasto TV. Haddaad subscribe noo saari kartana waan kaa mahad celin lahayn. Mahadsanid. Sababta koowaad ee hurdo la'aanta keento waa stress badan. Qofka haddii uu qabto shaqo badan iyo hawlo kala duwan oo walaac iyo walwal ku dhex jiro maalinkii oo dhan, habeenkii markii uu seexo isdhaho qofkaas ma hurdi karo oo maskaxda buuq ayaa ku furan. Hadda waan u malaynaa inaan isla fahanay sababta, laakiin stressow maxaad tahay? Waa maxay stress? Stress waa sida uu jirkeena ugu falceliyo cadaadiska. Waxyaabo badan ayaa sababi karo stresska, sida wax kugu cusub, wax aadan filanaynin, wax haddadayo naftaada iyo hantidaada iyo nooca shaqo aad ka shaqayso. Calaamadaha lagu garto stresska waxaan u kala saari doonaa 4 meelood. Waxaa laga fahmi karaa 4 meelood: garashadaada iyo garaadkaada, dareenkaada, jirkaada iyo qaab dhaqankaada. Garashadaada sida uu fahmay iyo garaadkaada stress uu ku hayo maxaa iska beddelaya garashadaada iyo garaadkaada. 1. Xasuustaada liidanayso. Number 2. Inaad hal wax xoog saari weyso oo aad maqane jooga tahay. Qofka ku hortaaga aad meel kale ku maqan tahay. Go'aan qaadashadaada oo liidata. Inaad kaliyo aragto dhanka xun. Arrin haday kugu dhacdo dhanka xun la fiirinay meesha aad ka fiirin lahayd dhinaca fiican. Walaac iyo maskaxdaada oo fikirka dhaafi karin. Bari oo dhan maskaxdaada buuq ayaa ku furan. Walwal joogto ah. Intaas stress ku hayo garaadkaada intaas ku dhici karo. Midda labaad, dareenkaada markii uu stress ku hayo maxaa iska beddelayo? Mar walba inaad niyad jabsan tahay ama farxad aadan helin, farxad daro. 2. Xanaaqaada inuu fudud yahay. Dareenka stress ku hayo xanaaqaada oo fududaana. Arrin iska fudud. Number 3. Inay isba beddesho dabeecadaada. Dhaqankaada iyo dabeecadaada inay isba beddesho. Hadda faraxsan tahay, hadda waa oyne, hadda waa murugsan tahay. Inay isba beddesho lagu tashan karin. Stresska jirkaada wuxuu ku keeni karo waxaa dhahnay 1. xanuuno kala duwan. Madax xanuun meel walba waa ku xanuuni karta. Number 2. ama shuban ku keeni karaa ama calooshaada inay adkaato calool istaag. Number 3. labo iyo wareer. Number 4. xabad xanuun iyo wadnaha garaacaysa oo kor u kaco. Number 5. inaad weyso rabitaanka galmada ama howlihii qoyska lagu baxnaa. Number 6. hargab iyo qandho mar walba soo laabto. 24 hargab ama qandho ku hayso. Stress badan ku hayo macnaheedu ay tahay qaada oo adkaada. Dhaqankaada maxaa iska beddelaya hadduu stress ku hayo? Ila fiiri. 1. cunto cuno badan ama aad u yar. Cunto badan inaad iska badiso hadduu stress ku hayo. Dadna cuntada badsadaan oo jawaab falcelin oo stresska ah. Haddii stress oo qabto cunto badan ay cunaan. Dadna cunto yar ayaa cunaan oo stress markuu ku dhaco. Number 2. inay hurdadaada badato ama ay yaraato. Waatana iidana. Qof walba sibo ula dhaqma stresska. Stress hadduu dadka qaar oo qabto hurdo badan oo u keena. Dadka qaarna hurdo la'aan ayuu ku lidaa. Dadka isku mid ma ahan. Marka waa isku waafaqnay ma aho stresska inuu yahay midka koowaad ee hurdo la'aanta keeni karo. Okay. Sidee loo xaliyaa marka? Sidee loo yareyn karaa stress? Okay. Inaan stresska aan yareyno waxaynu horseeday inaan helno hurdo macaan oo lagu nasto. Marka sidee loo yareeyaa stress? Ila dhageyso midaan inaa fahantin isku day. Tilaabooyinkan haddii aad raacdo waa tilaabooyin aan soo raadinay, soo baarnay in badan
inaan baroobeysano isku day. Ka faa'iidayso marka feejignow. 4 qodob leh waa bisma badno. 1 almiito suubi maalinkii ugu yaraan 10 daqiiqo oo rucleyn ah ama xirkabood. Maalinkii 10 daqiiqo rucley ugu yaraan 10 daqiiqo ama xirkabood oo 10 daqiiqa. 10 daqiiqo yaa waa ilaahay ma ka cabsan. 10 daqiiqo maalin kasta ama rucley ama xirkabood samee. Wax ka fudud ma laha. Intaas leh waa bis. Habeenkii si fiican u raaxaysan waa hurdo. Number 2 biyo badan cab. Maxaa yeelay biyaha waa oolyada jirka. Sidaas waa. Hadduu jirkaada uu qalalan yahay si fiican uma shaqeynayo. Dhiigga si la rabo ma loo isticmaali karo. Abaar camal u dhaqmaya adoo saxaro joogtid camal. Marka biyaha ina cabto isku day. Number 3 isticmaal vitamin B complex. Fitamiinkan wuxuu ka caawinaa isu socodka dhiigga. Wuxuu kaloo wanaajinaa xaaladaada oo farxad ayaad dareemaysaa. Wuxuu ku siinaa tabar. Dadkana wuu ku yar yahay in badan. Dadka Soomaalida badanaa wuu ku yar yahay oo cunto isku dheeli tiran ma cunno. Marka kaniini ayaa jiro oo 12 vitamin B 12 nooc oo mugta. Hal kaniini la isku keena vitamin B complex Allah. Maalinka hal xabad ku cunto kifaayo waa. Maskaxdaada ku wanaagsanaanayso jirkaada farxada dareeme tabar baro dhan madaalaysid. Marka baroowe. Number 4 Soomaali waxay dhahdaa qatina u khayr badan. Waxaan soo gaarnay midda koowaad ee adduunka dhan isku raacay inay xal u tahay hurdo la'aanta. Laakiin inta aan sheegin subscribe noo taabta. Halkun inaa gaarno ayaan u baahannahay. Muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada. Okay, intee marinay sax waa runtii adduunka dhan isku raacay. Waxa aan ka hadlayo waa jimicsi ama murqaha in la jiijiido ama la ari bixiyo. Waxa horay u soo sheegnay in stresska uu sababo in murqahaada ay adkaadaan. Waana filaa inaa ila aragteen midaas ama aad cabsato. Ka fikir midaas markii aad cabsato ama aad naxdo. Adiga dhan jirkaada wax isku soo koobmay camal oo isku soo laabmay camal noqonay ma kodaas ku dheer murqahaada dhan soo galayaan oo fahanteen. Murqaha ugu muhiimsan oo waajibka ay tahay inuu qof walba dabciyo waa murqa laabo sinta ama hip flexors la dhaho af Ingiriis ahaan markii loo dhaho. Murqan haddii uu adkaado wuxuu sababaa raaxo daro iyo inaad isku laabnaato culays badanna uu saaraa laf dhabarta iyo maxoga hoose. Almiito lagu dabciyo haatan shaashadayda kaaga muuqato. Ninkan wuxuu sheegayaa labadaada lug in isku mid noqdaan la rabo. Lugtaada oo fidsan ma jeedo ee lugta dhulka taal in labadooda xagal 90 degree inay sameeyaan la rabo u dhawa. Dhabarkaadana hore inuu soo qaluucisaa la rabo. Ma jeedo soo tilmaamo dhabarkaada ma jeeda. Marka taas soo sameysay hore wax u soo riixa camal ka dhigay meesha saaka dareemay ma jeedo. Cajarka dhinacaas ka dareemay. 30 second ahayne 30 second ko ilaa 30 tirsan waa ahayne marka bagtid soo sameeyaan wax yar wax hor u soo dhaqaajina camal ka dhigay hada lugta kale u bedelay hadoo sameeyna fiiriya waa kan hadoo sameeyna hore u dhaqaajina fiiri hore wax u dhaqaajina camal marka 30 ahaysid hore u dhaqaajina 30 kale ahayne kadib lugta kale u bedelay labada lugsin murqaha kale dabciska u baahan xasuusno haddii aan ku dhahay murqaas ayaa dhibaatada ugu badan sababa taasi ma ka dhigna murqaha kale inaad dhaafto maya. Waxa inaad sintaa fiican. Waana tan jimicsiyada jirka oo dhan.
Last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. guntigii iyo gunaanadkii waxaan u malaynaa inaan idinku dheereeyey muuqaalkan laakiinse waa wax sharaxaad badan u baahan haddii aad mawduucan wax ka faa'iiday ama hurdo la'aan ay ku hayso masku aragta calaamadaha aan soo sheegnay haddii ay macnaha waxa xalalka aan keenayna ee wax ku taraano noo soo laabo oo commentiska noo soo qor feedbackna soo sii macnaha natiijada waxaad soo aragtay daawada markuu dhakhtarku kuu qoro soo isticmaal waxa isku aragtay noo soo celiyo ku dhaha moogtaa dhakhtar mihi laakiin waxyaabo badan aan baaray marka soo baroobay noo soo falceli oo asatixraacina marka mahadsantihiin daawadayaal saa uga ogtihiin youtube-ka bisha dambe subscribe-ka dhan banaanka la keena anagana subscribe fiican ma haysano 25 le waayo u maleeyay marka kun inaana gaarsiisana u baahannahay subscribe noo dhaha waana mahadsantihiin dhibaatooyinka Soomaali haas inaan xalinaa rabnaa insha Allah nabadii السلام عليكم